su-aasha ugu dambaysa oo su-aalaha ku jirtay waxay ahayd gobolka banaadir. gobolka banaadir qof walba Soomaaliya inuu ka walwala aad u baahan tahay runtii waqtiga hadda la joogo. haddii aad la socotaan gobolka banaadir waa meesha keliya dowladda dhexe ama federaalka ay ka nooshahay. awoodeeda maha ay ku fashana waa gobolka banaadir. inkamka iyo dhaqaalaha ay heshana maha ay ka hesho waa gobolka banaadir. isteedyada kaloo dhisan, maamulada dhisan, canshuur ka timaado oo maanta dowladda dhexe u timaado oo dowladda dhexe ay wax ku socodsiiso ama mushaaro ku bixisa ma jirto. waxaa ogtihiin bajetka dowladda dhexe maanta oo la baasgareeyey waa 300 iyo intaasoo milyan oo dollar. markay ugu yar tahay 48% ay dowladda Soomaaliya inkam ahaan qiyaasaysaa inay dekedaha ay ka keeni karto. dekedaha la tilmaamayana waa dekeda Muqdisho iyo eerboorka Muqdisho oo gobolka banaadir. bimacnaa lacagta dowladda dhexe ee Soomaaliyeed ee federaalka ay ku shaqaynayso waxa ay ka qaadaysaa haddii canshuur caadi tahay, haddii canshuur deked tahay, haddii canshuur eerboor tahay, gobolka banaadir ay ka qaadaa. kama qaado gobollo kale, kama qaado meelo kale. waxa soo raaco waa kaalmooyinka noogu yimaada dowladaha oo ay noogu kabaan mushaaraadka ay noogu kabaan. gobolkaasi banaadir waxa uu xaq u leeyahay oo mudan yahay oo u baahan yahay oo aniga rabaa inaan kuu sheega fikirkeyga inuu yahay in sida ugu dhaqso badan maamul loo suubiyo gobolka banaadir. maamulkaas oo dadka gobolku degan ay la xisaabtami karaan waxa soo galo iyo meelaha uu ku bixiyo. dabcan maamul waxaa jiro waqtigii ugu dambeysay dowladda Cabdullaahi Yuusuf khaasatan ra-iisul wasaare Nuur Cadde uu joogay la dhisay gobolka banaadir loo dhisay oo loo suubiyey consulkaas uu doortay gobernatore. dabcan dowladda Cabdullaahi Yuusuf markay baxday xukuumadda ku xigtay ayaa la burburiyey nidaamka noocaas ah. waxaa loo celiyey nidaam kale oo ah in la soo magacaabo oo qofkii markaasi mas-uulka uu soo magacaabo. taas waxay dhalisay gobolka banaadir inuu yeelo waayo maamul nadiif ah oo dadkooda ay soo doortaan. hadda ka horna munaasabad kale oo xisbiga Eleys anigoo ka hadlaayo waan tilmaamay dadweynaha ku nool gobolka banaadir qabiil ma aha, jufo ma ahan, waa shacabka Soomaaliyeed oo qolo walba leh, reer walba leh, meel walba degaan kasta ka yimid. waxay xaq u leeyihiin inay helaan maamul ayaga ay soo doorteen oo codkooda ay ku keeneen. beri markuu wax gafadinta la xisaabtamaan xukunka ay ka qaadi karaan. waxaa la rabaa qof walboo Soomaaliya state walbuu ku nool yahay, gobol buu ku nool yahay inuu arrintaasi u dhaqaaqo oo u istaago sida gobolka banaadir maamul ugu yeelan lahaa. arrinta caasimadda walaalkan uu tilmaamay, caasimadda iyo sida ay tahay iyo xaalkeeda dastuurkaa qoraayo. dastuurka dib-u-eegida lagu suubinuu hayaa. maalinkii la keeno shacabka Soomaaliyeed ama baarlamaanka Soomaaliyeed taladu ka qaato ayaa ka dhihi doonaa wixii markaas la soo bandhigo. ayagaa soo bandhigi doono qaabka caasimaddu ay noqon doonto. ma maamul goboleed ay noqone, ma waxay noqone gobol, ma waxay noqone district, waxay noqonayso iyaga ha noo keenaano markaas aan ka doodno. laakiin intii taa laga gaarayo dadka gobolka banaadir ku nool oo maalin walba guryahoodina la cashuuraayo, hantidoodina dekeda lagu cashuuraayo, oo waqti walba ayagi culayska uu saaran yahay, waxay mudan yihiin oo ay xaq u leeyihiin oo waajib ah in loo dagaalamo, loo socdo, loo istaago, laga shaqeeyo u baahan inay yeeshaan maamul ay dadku soo doortaan. degmo walba oo gobolka banaadir ka dhisan doorashaa laga suubi karaa, sanduuqda dadka loo dhigi karaa, districtigooday soo dooran karaan, consilaa loo suubi karaa gobolka banaadir, guddoomiyaday dooran karaan, meeyaray dooran karaan. ha la gaaro inta caasimad doodeeda laga hadlaayo iyo sida shacabka Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ama baarlamaanka Soomaaliyeed uu go'aansan allaha na gaarsiiyo. laakiin intii taa laga gaarayo waxaan u baahannahay oo qof walba oo Soomaaliya iyo dadka gobolka banaadir degan si gaar ah u baahan in sanadkan 2019 gobolka banaadir uu yeesho maamul ay soo doorteen dadka gobolka u degan ama dadka gobolka ku nool oo ayagu ay doorteen ra'yigooda ay ku keensadeen oo aanan loo soo magacaabin. haddii uu madaxweyne soo magacaabay, haddii uu guddoomiye soo magacaabay, haddii uu soo magacaabay wasiir, inay ka baxaan u baahan yihiin.
dadka ku nool magaalada Hargeysa mayorkooda ayagaa soo doortay dadka Garowe ku nool ayagaa soo doortay gobolada dhan ayagaa soo doortay way gobolka Banaadir dadkiisu soo dooran karin maxaa diiday in dadkii la yiraahdo hal register gareeyo hal qoro inta cod baxsan karto dadku inay doortaan waxa soo dhan waxa keenayo hal dhibaato dowladda walba timaado ma aha in xukuumadda hadda joogto madaxda joogto kaliya aan ku eedeynay kuwa ka horeeyna waa ay qabeen waxay aaminsan yihiin gobolka Banaadir haddii maamul loo suubiyo in ayaga awoodoodu ay baaba'ayso ayaga awoodoodu Soomaaliya oo dhan ay maamulaan Soomaaliya oo dhan ay xukumaan kuwa Soomaaliya oo dhan xukumay madaxweyne u yihiin gobolada kuwa joogay madaxweyne u yihiin gobolka Banaadir madaxweyne u yihiin rasaar u yihiin dadka deegaanka degan gobolka Banaadir degan waa inay mayorkooda ayaga doortaan taas waxay keentay in sanad walba ninkii mayor laga dhigo uu ka cabsado bari waa lagu bedela taas darteed uu ku shaqeeyo rabitaanka qofka soo magacaabay oo uu ku shaqeeynin rabitaanka dadka isaga uu bedelayo ama uu shaqeeynayo magaalada Muqdisho markay weerartahay waxa ka soo xaroodo 17 milyan bishii haddana jidna looma dhiso biyo lagama qaado qashin lagama hagaajiyo asbitaal looma dhiso dadka waxbarasho lacag la'aan ma haystaan caafimaad lacag la'aan ma haystaan wax haba yaraatee qof muwaadin uu leeyahay oo ay helaan haba yaraatee ma jirto qofka xoogiisa iyo xoolihiisa isku daaweeya ilmaha lacagtooda wax ku baraan haddana waxaa laga aruuriyaa lacag aan laga aruurin Soomaaliya goboleeda kale oo dhan laga aruurin qofkii uu fahmin marka gobolka Banaadir ka hadlayna in qabiil laga hadlaayo reer loo doodayo waxaa laga hadlaa 3 milyan qof oo Soomaaliya oo ku nool gobolka Banaadir xaq ay u leeyihiin oo waxay u baahan yihiin waxaan rabnaa hal doorasho laga hadleeyahay dadkaas yaa matala ii sheegay baarlamaanka maanta aan joogno 276 cod waaye qof walba waxa uu ka yimid state uu ka yimid nima Hirshabeelle ka yimid nima Jubbaland ka yimid nima Puntland ka yimid gobolka Banaadir qof matalaayo oo gobolkaasi oo baarlamaanka 276 ku jiro ma laha haddana 276 iyo xukuumadii iyo dowladii oo dhan iyo safaaradii oo dhan lacagtooda wuxuu ka saaraya gobolka Banaadir waa wax aan xaq ahayn cadaalad ahayn la aqbali karin dadka gobolka ku nool iyo dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan u baahan in loo istaago wixii saacadaha ka dambeeyo doorashada soo socotana aysan dhicin iyadoo gobolka Banaadir uusan maamul una yeelan saas darteed xisbigeena ilaas la yiraahdo wuxuu u taagan yahay oo ka shaqeyn doonaa sanadkan 2019 mana uu soo jiifo doono mana fadhiisan doono ilaa gobolka Banaadir uu ka yeesho maamul aan la soo magacaabin maamul aan ka baqaynin bari in laga qaado xukunka oo ummadda u shaqeyn karin maamul aan ka fikiraynin qofka soo magacaabay ka fikiraya shacabka soo doortay hadii Ilaahay yiraahdo fikirka aan ka qabo gobolka Banaadir waa noocaas aan wada istaagno aan wada dhaqaaqno aan wada qaylino meel walba oo joogno aan ka hadalno gobolka Banaadir inuu la mid yahay gobolada waddanka oo dhan xuquuqdooda oo kale uu leeyahay waajibaadka saaran uu saaran yahay inay entitled yihiin ay u baahan yihiin inay helaan maamul ayaga ay soo doorteen ma rabno maamul loo soo magacaabo maalin walba in loo keeno markii mid walba la magacaabo uu cabsado ama uu yiraahdo waa lagu soo socdaa inuu yiraahdo sanadka gobolka loo dhisi lahay maamul waa inuu yiraahdo maahan kaliya waa in maalinka ugu horeysa ilaa maalinta ugu dambeysa aan u istaagno gobolka Banaadir inuu yeesho maamul asaga uu soo doortay oo xuquuqdiisa ka fikira waxa laga qaadana dadka ku celiya qaar ka mid ah 15% ayuu miisaaniyadda dowladda ku leeyahay gobolka Banaadir haddana meel lagu xisaabtamo ma jirto si ay ku baxdo qofka ma jirto halkii mar oo hantidoorka uu soo xisaabiyey oo cilado badan keenay oo 6 bilood oo ka mid ah 2018 lacag 16 milyan waxa la jiro oo kun inta uu soo sheegay waa aragteen dhibaatada dhacday baarlamaankii adib uu ka maray hantidoorkii adib ka maray ilaahay la gaaray guddigii dhaqaalaha ee baarlamaanka Soomaaliyeed maaliyadda in dadkii active-ka ah laga saaro leedahay laga baxsho maxaa dhacay waxyaabo fara badan oo aan loo baahnayn inay banaanka soo dhigeen arrintaasi arrin qabata maahan dadka Soomaaliyeed qabatana maahan gobolka Banaadir qabatana maahan waa mid u baahan dhamaantiin inaan istaagno waan mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
halkaas ayaa qodobadayna noogu soo qaadeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.